waxaan ku guda jirnaa daraasadeennii shanta gees qaybteedii miisaanka nolosha mawduucii miisaanka nolosha waxaan bartanka ugu sii jirnaa dhismaha golaha ummadda. dhismaha golaha ummadda waxaa ka horreeyey aan soo marnay tirada guud ee golaha ummadda Soomaaliyeed iyo qaybaha guud ee golaha ummadda Soomaaliyeed. haddeer dhismihiisii rabnaa inaan galno. isagaaba shan tiir lahaa Soomaaliya. shantiisa tiir waxay kala ahaayeen tirada guud golaha ummadda Soomaaliyeed, qaybaha uu u kala baxo, dhismihiisa, shaqada uu qabanayo iyo muddo xileedkiisa muddada uu shaqada hayo. shantaas oo ahaa laba waa soo qaadanaa, tirada iyo qaybaha waa soo qaadanay. haddeer waxaan gelaynaa dhismaha golaha ummadda Soomaaliyeed. shantan tiir ayuu ku dhisan yahay. tiirka koowaad waxaan dhihi karnaa waaxda howlwadeennada. howlwadeenna haddaan leeyahay waxma soconaya. waaxda howlwadeennada. labo, waaxda diiwaangelinta. saddex, waaxda hubinta. afar, waaxda shuruudaha. shan, waaxda ansixinta. shantan tiir ayuu ku dhisan yahay. dhismihiisaan u maraynaa. shantan tiir kasta howlwadeennada noo soo socda. waaxda diiwaangelintaan ku xijinaynaa, waaxda hubinta, waaxda shuruudaha, waaxda ansixinta. isagoo intaan ka faahfaahsanaan gelaynaa. qodob aan dul istaagi doono, qodob walba anuu u qaybin doono. shan tiir ila soco. waxaan weli ku guda jirnaa daraasadeena shanta gees. mawduuceennii shanaad aan ugu magac darnay miisaanka nolosha, qaybtiisii koowaad ee golaha ummadda Soomaaliyeed. golihii tiirarkooda markaan sheegnay, tiirarkaan rabnaa intay u kala baxayaan inaan sii sheegno. waxaan soo sheegnay ama aan soo qaadanay tirada guud ee golaha, qaybaha ay u kala baxdo. waxaan keennay xataa iyagoo maxaa la dhihi jiro dhammaystiran magacyadooda. haddeer dhismihiisaan gelaynaa. dhismihiisa markaan galno shaqadiisa noogu xigtay muddo xileedkiisii. laakiin haddeer waxaan dul istaagi doonaa ama halaal u sheegi doonaa dhismaha golaha ummadda Soomaaliyeed. kow, dhismihii waxaan u kala qaadnay waaxda howlwadeennada, waaxda diiwaangelinta, waaxda hubinta, waaxda shuruudaha, waaxda ansixinta. shantaasaan u kala qaadnay. waaxda howlwadeennada shantaanay noqon doonaan: kow, guddoomiye in la helo. laba, guddoomiye ku-xigeen in la helo, golaha iskale macnaha. saddex, agaasime guud ee golaha uu leeyahay. afar, xog haye oo uu leeyahay golaha. shan, afhayeen waa inuu golahu yeeshaa. maxaa la dhihi jiray waaxdiisa howlwadeennada intaan shantan qaybood ugu kala baxaa. waaxda diiwaangelintan kuu soo hashay. waaxda diiwaangelinta. kow, ninka xilka raadinaya waa xafiiska waaxda uu tegi doono waay. ani xilaan rabaa iyo xildhibaan iga dhig iyo madaxweyne iga dhig, ra-iisul wasaare iga dhig, wasiir iga dhig. waa dhammaadeen waxaas waa dhammaadeen. haddaad xil rabto ood wax isku hayso xafiiskana soo mari doontaa. kow, magaca. labo, da'da. saddex, ciwaanka. afar, nambarka golaha. shan, nooca xilka aad rabto. intaasaa lagaa buuxinaa. iska orod ma jiro. magaca saddexana laga rabaa. maxaa la dhihi jiray xubinkan raba inuu ummadda howl u qabto. waaxdaanuu soo maraa. waaxdaana kow waxaa laga qorayaa magaciisa saddexan. laba, da'diisa. ciwaankiisa, ciwaan la-aan ma jirto. nambarka golaha. ilaa waxaan soo niri golaha waa meesha ay ka soo baxayeen adeegayaasha ummadda Soomaaliyeed. tusaaloo kale golaha wuxuu rabo noqon doonaa. nambarka golaha ama kaarka golaha waa inaad haysato calaa i xaal.
ninaan golahaas soo marin tusaaloo kale ninka wax kaba soo qaadba ninkeena ugu maxaa la dhihi jiray noogu hooseeya haddaan ka soo qaadno ya golaha meel uu ka soo gelaa tusaaloo kale ninka geeljiraha ka soo qaadbal geeljira aqoon bartay oo qoyahana ya oo maanta inuu ummadda meesha ugu sarreysa inuu ka adeega rabo intuu soo maraa golaha nimcooleyda markuu soo maro wuxuu ka sitaa kaarkii ama aqoonsigii ama nambarkii lagu yiqiinay ama kaarkaba iska dhe oo golaha nimcooleyda kaarkiisa ayuu wataa waayo qof meel taagan ma jiro hornaar u niriba qofkaas soo qabatid meel unba maxaa la dhihi jiray qabiil dabada ma la gelinayo hadda wuxuu dabada la gelaa maxaa la dhihi jiray golayaashan mid ka mid ah tusaaloo kale nin macallin hadduu rabo inuu xilka ugu sarreeyo ummadda inuu maxaa la dhihi jiray qabto ka adeego wuxuu ku qasbay inuu soo maro golihii tacliinta waa inuu xagga ka soo dhammaystirtaa waxyaabihii laga rabay oo dhan kadib oo yimaadaa marka maxaa la dhihi jiray dadkii ay golayaasha lama ogtahay 20 golo soo ma ahayn 20kaas gole hal gole ay ku wada midaysan yihiin la sameyn doona hadduu Ilaahay idmo halkaas gole waa golaha ugu weyn oo intaan u kala golahaas ugu weyn intaan u kala qaybin doonaa marka yaan warka kugu dheeraynin waxaan u soconnaa hadda ayaan ku sii sheegay dawaaxa diiwaangelinta magaca da'da ciwaanka nambarka golaha ama kaarka golaha mid ka rabtid waa isku mid nooc xilka aad rabtid meeshanaad ku buuxinaysaa aniga madaxweynahan rabaa meeshana lagaaga qoraa xildhibaanan rabaa meeshana lagaaga qoraa waxaan rabaa maxaa la dhihi jiray wasiir meeshana lagaaga qoraa waxaan rabaa ra'iisul wasaare meeshana lagaaga qoraa haddaad rabto maxaa la dhihi jiray xibin kasta oo ummadda u adeega nuucu doonaha ha ahaadee haddii aad rabto meeshaad ku soo cadaynaysaa ila soco si wanaagsan waaxda hubinta shantan tiira hoos imaanaysa shanta tiir maxay kala yihiin ilan qof aan la hubin meeshaas inuu taga waa laga fiican yahay soo maaha tacliinta aqoon ma sidataha tacliintaada nuuceeda meeshaan waxaa noo jooga annaga dad khabiiro ah oon soo xulanay oon ciyaar ahayn waaxda hubinta tacliinta laga hubinaa daba tacliin leedahay taariikh nololeed qasab qofaan lahayn ma lahan maxaa ku soo haray caafimaadkaaga ma bad qabtaa ya maskax caafimaadkaaga ma dhammaystiran yahay ayagaan xilkaas u daynaynaa waxqabadkaaga oo maxaa la dhihi jiray ilaahay uu ku siiyey labo bulsho ahaan qof kasta waxa waa ilaahay dabeecadii karti gaar uu siiyey nuuca ay tahayna meeshan aan kaaga hubin doonaa ila soco waaxda shuruudaha runtii waaxda shuruudaha kuma qorano meeshaan iga raalli ahaada waxaan u qori waayey ya aqoonteedoo yar ya iyo anoo maxaa la dhihi jiray qofka Soomaaliga shuruudaha laga rabo inuu ummadda u adeega maanta aan ii diyaarsan aqoonteeda aan lahayn sidaasan ugu aamusay laakiin se dad iga aqoon yahansanaa jira oo u deyn doono shuruudaha laga rabo qofka Soomaaliga anigu waa ugu adkaatay laakiin saasan ugu gaabsaday waa ka gudbaynaa waaxda ansixinta maxay noqonaysaa waa xafiiska ugu dambeeya ama waaxda ugu dambeeya oo qofka uu ka soo dhamaanayo waaxdan maxay hubinaysaa diiwaangelintaadii in heerkii laga rabay ay taagan tahay hubintii lagu hubiyey inay sax tahay shuruudihii laga rabay inaad dhammaystirtood buuxisay intaas markii ay ka hubiyaan kadib ay laasho inaad xilkan raadsan karto ama aad tagi kartid ay ku ogolaanayaan kadibna waxay ku siinayaan shahaadadii waxay ku siinayaan oo ku cadeynaysay waxaan dhan inaad soo dhammaystiratay oo aad ku soo guuleysatay qaybta intay noo joogaysaa waxaan geli doonaa qaybta xigta fadlan ila socda idinkoo ku mahadsan